السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركل السود واضح أدي هذا ومهتسنتهين مقال كان وحربا إن ذكول وذاقه محا إلا يا حد كسر كردي دلكي جارلي كيرك أو شلي لجود لي سجوا لها لي بقمنان أرضية أو جامعة كتالا قبل كيوتا إلا يا حد بارياش محي هلين شرد رائد أو يقبتين وحيابها أي صوبان دجين قف كلاجة شكسية هي سور كيسة ولا صوبان دجي baarayaashu maxay muuqaalaha oo ilaa iyo hadda ay heleen isla markaana baaritaankooda ay wadaan maxay tahay diyaaradan la leeyahay airport aan ka fogeyn goobta dilku uu ka dhacay diyaarad private ah ayaa ka duushay kadibna daqiiqada kadibna raadeerka ayay dansatay arintaasina sidoo kale waan idin la wadaagayaa madaxweyne Trump oo isaguna sheegay bilada la yiraahdo Presidential Medal of Freedom inuu guddoonsiin doono ninkii dhintay ee saaxiibkii ahaa la taliyana uu ahaa in uu biladaasi guddoonsiin doono dhawaad hadda 24 saac ayaa ka soo wareegatay markii la dilay Charlie Kirk oo ahaa nin muxaafada isla markaana ku wareega jaamacadaha Mareykanka dhalinyarada jaamacadaha dhigatana fikirkiisa kala dooda isla markaana su'aalo ay weydiiyaan waxana uu ahaa ninkaasi nin inta badan cunsuri ah oo dadka cadaanka ah iyo Kirishtaannimadu ay si aad ugu weyn tahay وهذا كور واحد يري حتى فلسطين واحد يري هذا ما بجران با مسلمين تاسو جلوتيجا قومولود كدت كاسيو إذا كان واو نحبا مركا شلي استقول لها اللي يدد كدواد لبكون إلا يسدح كون وقف لحية جامعة يوتا فالي يونيفرسيتي أيا لتوكتي هل حبد أيا لقول فتي اسبيتال كأيا لولا عرري وحتى إلى الذي سأيا لا عررتي سيدا صور كانت كاركتان markii dambana isbitaalka ayuu ku geeriyooday marka baaritaankii ayaa ilaa ay hadda socday hadaba FBI-da iyo mas'uuliyiinta gobolka Utah shir jaraa'id oo maanta qabteen ayaa waxay ku faahfaahiyeen waxyaabaha ilaa iyo hadda ay heleen FBI-du waxay soo bandhigtay sawirkan idiin muuqda oo ah qof laga shakisan yahay oo loo maleynayo inuu dilkaasi Charlie Kirk uu geystay laakiin ilaa ay hadda qofkaasi lama hayo FBI-du waxay sidoo kale sheegeen meel kaymaha oo ka fogeen jaamacadda in ay ka heleen qori loo maleynayo inuu yahay kii lagu dilay Charlie Kirk isla markaana qoryahan sida aadka ah wax u dila oo aakiyaasha ama high power rifle ka la yiraahdo ayay ka heleen meel kayma ah oo jaamacadda aan ka fogeyn laakiin ilaa ay hadda shakhsiyadda qofkan ama magaciisa lama carabaabin shalay markii arintu dhacday qalqal ayaa meesha ka dhacay dadku dhawaad 3,000 ayaa joogay dadku waa ay kala carareen boolisku waxa jirtay inay qof ama nin odaya oo magaciisa hadda lagu sheegay inuu yahay George Zane oo 71 jir ah la xiray laakiin markii su'aalo la weydiiyay kadib cadeymo lagu waayo oo la sii daayay markii dambe haddana taliyaha FBI-da waxa uu sheegay in qof kale oo laga shakisan yahay la soo xiray isagana su'aalo ayaa la weydiiyay wax dambiye waa lagu waayay waa la siiday mas'uuliyiintu markii saaka shirka jaraa'id qabanaya waxay yiraahdeen labadii qof oo aan ka shakino soo xirno sii daynay hanjabaado ayaa loo soo gudbinaya marka hal laga joojiyo fadlan ay yiraahdeen dadkaasi dad laga shakiyo la baaray dambina lagu waayay la sii daayay ayay ahaayeen haddaba marka waxa jirta in baarayaashu marka laga soo tago qorigaasi heleen iyo sawirkan ay soo bandhigeen in ay jirto lacag ilaa iyo $100,000 la siinayo qofkii gacan ka geysta soo qabashada qofkan laga shakisan yahay oo dilkaasi inuu geystay looga shakisan yahay marka baarayaashu waxa ay sidoo kale xaqiijiyeen in ilaa ay hadda aysan jirin qof loo soo xiray marka qofka sawiradiisa la soo bandhigay waxay baarayaashu ku sheegeen qof dhalinyaro ah oo dhalinyarada heerka jaamacadeed ah in uu yahay sida sawirka ka muuqata waxa uu xiran yahay koofi madow sidaad aragtaan oo kiyaala dhinac kuwa qoraxda loo qaato oo sunglasses oo madow ah sarwaal jeans ah funaanad gacmo dheer ah oo madow ah ayuu xiran yahay sida baarayaashu ay sheegeen shacabka ayayna weydiisteen qofkii garta sawirkaasi inuu la soo xiriiro FBI-da gaar ahaan qaybta Salt Lake City ee gobolka Utah oo halkaasi xitaa nambarkooda ay ku soo qoreen marka waxay leeyihiin qofkii garta sawirkaasi hanala soo xiriiro marka ilaa hadda waxyaabaha la helay waxa kamid ah in qorigii la helay loo maleynayo dilkii in lagu geystay sawirkanna la soo bandhigay marka waxa sidoo kale jirta in ninkan dhalinyarada ee Charlie Kirk ee madaxweyne Trump aad isugu dhawaayeen xitaa waxa la leeyahay madaxweynaha la taliye ayuu ahaa la taliyaashu waxay isugu jiraan qaar la magacaabay oo madaxweynaha si toos ula taliyo oo la shaqeeya iyo kuwa markii ay soo wacaan hadalkooda uu dhageysto waxa kamid ah ninkan shalay dhintay ee Charlie Kirk iyo gabadha la yiraahdo Laura Loomer haddii ay soo wacaan madaxweynaha waxa la leeyahay si toos ayaa loogu dhiibi jiray oo xiriir sidaas u dhow
ayaa ka dhaxeeyay madaxweynaha xalay waa tii qasabtay in Oval Office intuu soo fariisto oo hadal ilaa iyo 4 daqiiqo ah ujeedo xira dhinaca laftiga ama dimuqraadiyiinta ayaa arrintan ka dambeeyay marka waxaa sidoo kale jirta in hadda ururkiisa la yiraahdo Turning Point USA isagoo 18 jir ah uu aasaasay sanadkii 2012 isla markaana sidoo kale waxaa jirta Turning Point USA iyo Turning Point Action ninkan waxa sidoo kale uu hadda ku guda jiray safar oo ugu magac daray soo laabashada weyn ee Mareykanka The Great America Comeback Tour oo uu doonayay jaamacado fara badan oo Mareykanka inuu ku maro laakiin arrin la yaab leh ayaa soo baxaysa oo shaki dhalinaysa waxa la leeyahay FBI-du markii arrinta dhacday eeraboorada halkaasi ka agdhow maxay u xiri waayeen waxa hadda soo baxday eeraboor private oo si gaar ah loo leeyahay oo aan ka fogeyn jaamacadda uu dilku ka dhacay oo 5 mayl u jira in diyaarad private ah ay ka duushay saacada kadib markii dilkan uu dhacay waxa loo baahnaa in sidoo kale hawada la xiro markii baaritaankan la bilaabay diyaaradan private-ka markii hawada ay gashay 32 daqiiqo kadib raadeerka ayay dansatay dhinaca waxa la leeyahay Arizona ayayna aaday ninkan la dilay Arizona ayuu deganaa marka dhinaca Arizona ayay aaday diyaaradan waxa la leeyahay waxa ay dooshay wax ka yar kadib labadii duhurnimo dilku sida uu dhacay 12 iyo 20 daqiiqo ayuu dhacay labadii duhurnimo ayay kacday diyaaradan waxana sidoo kale la leeyahay waxa sidoo kale ay dansatay raadeerkeeda ilaa iyo 32 daqiiqo kadib markii hawada ay ku jirtay arintaasina kulay baaritaan ayaa lagu sameyn doonaa diyaaradaha private ka number ay leeyihiin dabagal ayaa lagu sameynayaa yaa raacay arimahaas oo idil baaritaan ayaa hadda ku socda marka baarayaasha ninka gobolka Utah u qaabilsan public safety-ga oo la yiraahdo Bo Mason shirka jaraa'id oo maanta qabtay waxa uu yiri waxaan helnay muuqaal cadeynaya dhaqdhaqaaqa qofka looga shakisan yahay inuu dilka geystay ninkan waxa uu yiri waxa uu jaamacadda yimid 5 saac iyo 52 daqiiqo waxaan helnay dhaqdhaqaaqiisa markii jaranjarada uu korayay saqafka sare markii uu korayay halka toogashada uu ka geystay sawirkan idin muuqdo qofku meesha saaran kadib markii uu dilka geystana cararaya ayay kaamirooyinku qabteen marka waxa uu yiri muuqaal fiican ayaan haynaa qofkun markii jaranjarada uu ku socday saqafku uu korayay markii uu ka degayay oo meel la degayahay uu ku cararay waxaan wareysanay dadkii guryahaasi deganaa kaamirooyinkooda waxyaabihii ay duubeen hadii ay wax arkeen waxana uu sheegay in muuqaal fiican ay hayaan haddana ay muuqaalkaasi falanqeynayaan ama anaas gareynayaan waxyaabaha ka soo baxana sidoo kale ay ogaan doonaan laakiin waxa uu sheegay ma doonayaan in ay hadda muuqaalkaasi ay soo bandhigaan marka waxa uu leeyahay dhaqdhaqaaqii qofkan laga shakisan yahay inuu dilkaasi geystay waan helnay muuqaaladaasi oo idil haddana baaritaanada waa ay socdaan waxa uu u mahad celiyay saraakiisha ama ciidamadii kala duwanaa ilaa ay shalay ilaa ay xalay baaritaanada waday isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri I'd like to thank all the investigators that are involved in this. They have worked around the clock all day yesterday through the night last night. Investigators from the State Bureau of Investigations, from county, from city agencies, the university, our federal partners with the FBI, the ATF, and many others. Those are just a few of the people that we have involved in this. I'd like to thank all of them for their strong work. Through all that work last night, we were able to make a few breakthroughs. Through all that work last night, we were able to make a few breakthroughs. We were able to track the movements of the shooter. Starting at 11:52 a.m., the subject arrived on campus, shortly away from campus. We have tracked his movements onto the campus, through the stairwells, up to the roof, across the roof to a shooting location. After the shooting, we were able to track his movements as he moved to the other side of the building, jumped off of the building, and fled off of the campus and into a neighborhood. Our investigators have worked through those neighborhoods, contacting anybody they can with doorbell cameras, witnesses, and have thoroughly worked through those communities, trying to identify any leads. We do have good video footage of this individual. We are not going to release that at this time. We are working through some technologies and some ways to identify this individual. If we are unsuccessful, we will reach out to you as the media and we will push that publicly to help us identify them. But we are confident in our abilities right now, and we would like to move forward in a manner that keeps everyone safe and moves this process appropriately. dhinaca kale madaxweyne Trump oo saaka ka hadlayay 24 sano guuradii ka soo wareegtay markii weeraradii argagixisada Al-Qaacida ay ku soo qaadeen Mareykanka bishii September ayna 11 sanadkii 2001 ayaa waxa uu sheegay in ninkii saaxiibka ay isku dhawaayeen ee shalayda toogto la dilay Charlie Kirk oo guddoonsiin doono
bilada ugu sareysa ee madaxweyne Mareykanka uu guddoonsiyo qof shacab ah oo la yiraahdo Presidential Medal of Freedom waxaana uu sheegay inuu rajaynayo in dad aad u fara badan ay maalinta abaalmarintaasi la bixin doono oo waqtigeeda uu gadaal uu sheegay inuu ka soo sheegi doono inay ka soo qayb gali doonaan madaxweyne Trump oo arintaasi ka hadlayeen waxa uu yiri express the horror and grief so many Americans at the heinous assassination of Charlie Kirk have felt. Charlie was a giant of his generation, a champion of liberty, and an inspiration to millions and millions of people. We miss him greatly, yet I have no doubt that Charlie's voice and the courage he put into the hearts of countless people, especially young people, will live on. I'm pleased to announce that I will soon be awarding Charlie Kirk posthumously the Presidential Medal of Freedom. The date of the ceremony will be announced, and I can only guarantee you one thing, that we will have a very big crowd. Very, very big. aad iyo aad u mahadsantiin asxaab nabadgelyo